degmada Runurgood haddii aan la wadaagno asxaabtayna sharafta leh, haddii aan la wadaagno xoogaa taariikhdeed intaan ka naqaano. taariikhdeed oo dhammaystiran ma ahan, laakiin iyadana waa soo wadna, laakiin hore dhac waaye. degmada Runurgood gobolka Shabeelle Dhexe ku taala, gobolka Shabeelle Dhexe ku taala ay ka tirsan tahay, degmooyinka ku yaali ka mid tahay. waa degmada ugu waqooyisa ee gobolka uu la wadaago gobolka Galguduud, waxayna gobolka Galguduud ay kala isa saarka ay u dhowdahay degmada Runurgood. waxaa la magacaabay dowladii Siyaad Barre dhicitaankeedii 80kii iyo 80 meelahaas la magacaabay. 90kuna dowladda dhacday, marka dib u dhis ayaa lagu bilaabay markii dowladda Siyaad Barre dhicisay. saldhiggaa laga hirgeliyay, goobo iskuul waxbarasho laga hirgeliyay, iskatoona isaga dhaqaaqeen oo mala damba burburiyay. waxaa kaloo la sameeyay, waxaa ku taala baraagta ugu weyn gobolka Shabeellaha Dhexe oo qiyaasteedu tahay inay 102,000 oo fuusto qaado sida la sheegay, oo ah baraagta dowlo oo degmada laga yaqaano. baraagta dowlo waxay ku taalaa dhanka waqooyi ee degmada, dhanka waqooyi ka xigta. waa baraagta ugu weyn oo la sheego ee gobolka Shabeellaha Dhexe dowladii Siyaad Barre ka hirgelisay. waxaana nasiib u yeeshay degmadaas. waxaa ku yaala saldhig iyo iskool, laakiin dib ma helin macallimiin sii wada, maxaasuuna ku burburay. degmadu waa degma baxdahan haddaad gasho aan weynankeedu sii buurayn, oo iska qiyaas ah oo macquul ah. handala jufadaha iyo qabiilada aan kala joogo deegaanka ku abtirsan ma wada degano degmada. dhibka ugu badan waxaas uga yimaaday sababtuna waxay weeyaan dadkoon is aaminsanayn oo xoogaa dagaalo xasaas ah ay dhexmar ay taagihiin. degmada jufada kasoo jeedo waxaa la yidhaahaa Daawud Masame, oo ah beesha Abgaal, qabiil muhiim u ah ana ka mid ah ayaa kasoo jeeda degmada ay iskale saqayso kala baxaan. labadaas qabiil islama wada degano, handala labada qabiil oo saaqa degan iska toosaqa wada deganin. Yuusuf Daawud dhowr maraa laga codsaday inay soo degaan, laakiin way ka biyadiideen. marka shirar badanaa ku dhex maray. Yuusuf Daawudna way shireen, isagana way shiriyay. markii dambe shirkaan kasoo qaadan doono waxa weeyaan gaba caan baxayaa jiro la yidhaaho layskuma raacin Runurgood, ninkii rabaasa loo raraa. layskuma raacin Runurgood, ninkii rabaasa loo raraa. marka dabcan waxa weeyaan iskuma raacin oo isma fahmin. marka degmadanu halkaasay ku taalaa. tuulooyinka hoos yimaada waxaa ka mid ah runtii waa dhul baaxad leh ku taalaa, weliba dhul carcad ay ku taalaa maasha Allah. xoolaha Ilaah ugu deeqay, beeraha Ilaah ugu deeqay, carafteedu waa udgoon tahay maasha Allah. ceelasha muhiimsan oo hoos yimaada waxaa ka mid ah deegaanada ceelasha Danqoor Marno, Abaaji oo 30 kiiloomitir oo ka xiga dhanka waqooyi, una dhow xuduudkaas Galguduud. ceelgeed Rarane oo degmada u jira 5 kiiloomitir. wixii ku xidhay ceel Saalax oo iska ag dheereen oo 25 ilaa meelahaas u jira 24. ceel Cali Muuse oo ah ceelka xuduudka dhanka kore ka jira degmada, oo gobolka Shabeellaha Dhexe dhamaadkiisa u dhow, oo gobolka Galguduud la wadaagto una sii dhow degmada Galcad oo ka tirsan gobolka Galguduud. wuxuu u jiraa ilaa 50 ilaa 60 kiiloomitir lagu qiyaasaa. ceel Bacad ku ag yaala oo suno ah oo tuulo weyn oo runtii muhiim ah oo iyadana u jirta 60 amba 56 lagu qiyaaso oo degmada hoos timaado. Daaru Nimco ceel la yidhaaho jira oo u tira ilaa 70 amba 80 degmada u jira, uguna beegan dhanka galbeed amba Hordhac sa u taqaanin, oo gobolka u dhow degmada iska gobolka ku wada yaalay laakiin u sii dhow degmada Aadan Yabaal. marka Hilowla Gaab oo u jira isaguna 20 kiiloomitir, Duma oo jira 15 kiiloomitir amba 20 kiiloomitir. ceel Gowl la yidhaaho xoolaaleydu daaqdo badda jinkeer ku yaala oo u jira ilaa 85 amba 90 kiiloomitir u jira oo sahlani.